السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأهلي سلامي. سلام كدب. بريهان برامج كانيجي براء كبر باري سيدي لوgu talagalay wiigan dhaxdu ka baxay sababtoo ah shaqo badan oo safar aan u baxay oo isla wadanka gudihiisa marka safar badan markaan galana dee ima suurtagal inaan kelibadii weekly sidii loogu talagalay aan usoo geliyo marka almost hadda adiga bil meelahaasaan khadka ka maqnayn oo safar shaqo ku maqnaa alxamdulilah ilaahi wuu isoo nabad celiyey safarteeda marka bixitaan iyo soo gelitaan ahayd marka saasaan xoogaa ku yar mashquulay sida kale dee barnaamijyadii hadda markaan soo noqday dee insha allah waxaan rajeynaynaa insha allah inaan bilowno barnaamijkanagii halkii maalintii noogu istaagay inaan kasii bilowno insha allah dee barnaamijku taxaan u ahaa barnaamijyadan kasoo hadalnay maalintii ugu horreysay waxay ahayd waxbarashada waxa waalidka kaga aadan waxbarashada cunugiisa waxyaalaha saameynta ku yeesha wada shaqeynta iskuulka iyo waalidka ahmiyadii faa'iidada ay leedahay in iskuulka iyo guriga ay hal muusig ku dhansgareeyaan macnihii ay hal luuqad ku wada hadlaan oo hal qaab u dhaqmaan barbaarinta iyo akhlaaqinta cunuga in mas-uuliyad wadareed ay tahay saaran iskuulka iyo guriga ahmiyadda ugu badan ay tahay guriga saaran tahay inuu waalidka ka qeyb qaato activiteedyadii iyo shaqooyinka ka dhacay iskuullada gaar ahaan waqtiyada feestada ama iskuulka xirmaayo iskuulka furmaayo iyo feestooyinka udhexeeya de sana dugsiyeedka inta udhexeysa dhacayso inuu ilmaha maaragtay ka qeyb qaataan waalidka inuu noqdo waalid soo jeeda oo aan hordin oo waxa dhacaya dee cunugiisa iyo agaarkiisa iyo iskuuladii waxa ka dhacaya o dhan baa waalid aada oo la socda waxaan kaloo ka hadalnay in ahmiyadda ay leedahay waalidka inuu la sheekaysto cunugiisa marka uu ka yimaado iskuulka iyo banhaagaha wixii wanaagsanaa uu maanta cunugii qabtay iyo wixii uu aan wanaagsaneyn ee ka dhacay normally markii banhaagaha ilmaha uu tegayo subaxii markaad tegaysa dadaa reboodka geenaysaan sheegnay laakiin markaad soo qaadaysa galabtii wax alla wixii dhacay saacadihii aad ka maqneyd oo dhan waalidka waa loo sheegaa wixii fiicnaa iyo wixii kale ee maaragtay shila dhacayba laakiin iskuulka laisuma sheego iskuulku ardayga saa subaxii taga galabtiina waqti iskuulka dhamaadana saa ka yimaada inta badan marka macalimiinta iyo waalidka kulan fara badan malaha marka la barbardhigo baanhaagayaasha iyo xanaanooyinka marka maadaama marka aadan macalinkii arkaynin daily aadan arkaynin ilaa un wax dee gooni ama ballan aada samaysato maahane ahmiyadda ay tahay marka inaad cunuga adiga sheekeysatid saad iskuulka ugu xirnaatid wixii wanaagsan ee dhacayna inaad halkii kasii wado maasha allah cunugii lagu booriyo lagu dhiirageliyo inuu halkaa kasii wado wixii khalada dhacayna in maaragtay waalidka sida ugu dhaqsaha badan uu tallaabo u qaado siduu khaladkaas u joojin lahaa xaguu ka yimid ma cunugaagu ka yimid ma arday kalu ka yimid ma macalinku ka yimid ma xagga waxbarashada ma qaab dhaqankii galaaska gudihiisa ma qaab dhaqankii la shaqeynta ardayda kale ilmahaaba ma wada shaqeynta cunugaaga iyo macalimiinta ka dhexeysa ma wada shaqeyn la-aan ka dhexeysa cunugaaga iyo kaalkaaliyaasha jooga iskuullada waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay inay indhahaaga furan yihiin aana la socotid actually waxaa dhacay waxaasoo dhan hadda waan kasoo wada hadalnay kulli hadda waxaan bilaabeynaa bejaj cusub aan bilaabeynaa oo dee ku saabsan barbaarinta caruurta insha allah waxaan rajeyneynaa insha allah inaad sidii aada ugu taxneydeen insha allah dee ugu taxnaan doontaan oo dee aada ka qeyb qaadan doontaan insha allah dhegeysiga iyo qeybinta iyo si qof walba waalid ah oo wadanka norway ama guud ahaan degan wadamada reer galbeedka ay clipkaas u xiraan waana mas-uuliyad wadareed saaran dee qof walba waalida ama iskuul ha ka shaqeeyo ama yuu kana shaqeynin waalidba uu wadanka norway degan meel baa kaga aadan markay noqoto barbaarinta iyo wadaagga warbixinta markay noqoto qof walba meel ay mas-uuliyad ka saaran tahay marka waalid walbana inuu meeshii buuxiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo maalmaha soo socda maanta ama berri dambe
waxaa la xusayaa maalintii luuqadda hooyo. waa barnaamij uu degmo walbo ama kamoon walbo oo wadankan degan yahay uu sanadkii uu u dabaaldego. laakiin dabaaldegyada ay u dabaaldegaan kamoonyaashu keliya waxay ahayd wax un ku eg xanaanooyinka ama baanhaagayaasha ku eg u ahaa. laakiin sanadkan markaan u dabaaldegan international mushmal daagnan loo dabaaldegayo maalinta caalamiga ee luuqadda hooyo, si ka gedisanaan rabnaa sanadkan inaan u dabaaldegno. anaga haddaan nahay degmadanada aan degannahay, wada shaqeyn fara badan aan kasoo shaqeynay aniga oo de iska shaqsiyan hadda organisation aan ka shaqeynin, laakiin organisationna hore de freeville ka shaqeyn jiray, freeville central biblioteca, baanhaagayaasha infantry center, meelahaas oo dhan hadda wada shaqeyn fara badan naga dhexeysa. 21 insha allah I think inay ku aadan tahay maalinta khamiista yaan rabnaa inaan dhigno maalinta caalamiga guud ee luuqadaha hooyo. barnaamijkaas marka waxaan rabnaa inaan ku baraarujino sababtaan u weyneyna waxay ahayd in la weyneeyo luuqadda hooyo, ahmiyadday u leedahay cunuga inuu barto luuqadiisa hooyo. yacni ay rabaan dad oo cilmi ulo pedagogisko ama macalimiin ama takhasuso inay ka hadlaan. sababta waalidiinta Soomaaliyeed markaa rabto inaad homework ilma ka caawiso intaad meel furto ama lexiyalba sameyso ood English ama mathematics ama noshka aad ka caawinaysid, meel kala fadhiista galaaska ma arkaysid. laakiin markaad rabto inaad ilmihii luuqadooda hooyo u dhigto, hal cunug oo imaanaya male. sababta waalidiintu ma interest gareynayaan waxa la wuxuu waalidka interest gareynayo iyo cunugin interest gareynaya runtii. sababta cunuga ma yaqaano ahmiyadda ay leedahay luuqadiisa hooyo, ma fahmayo. marka maadaama luuqadda hooyo ay ka weyn tahay luuqad keliya, ay tahay culture iyo dhaqan ay tahay qofka waxa dalkiisa iyo dadkiisa ku xira, waxa ay tahay taariikhdiisa waxa ku xira, in ay tahay identity wax la dhaho, yacni qofka shakhsiyadiisa. luuqad waa qof waa ID oo kale haysata ama passport oo kale. baaritaan badan oo scientific oo la sameeyay jaamacadaha Norway sameeyeen dabcan iyo jaamacado kale ay jiraan oo damo qofku uu yaqaano luuqadiisi si fiican u yaqaano, damo cunugu marka luuqadihii kale u fududaanayso. damo de luuqadii kale oo Norwegianka ama wadamada kale Ingiriiska wadamada loo qaxay luuqadooda ay ku furnaatana maadiga ku fududaanaya. marka maadaama aan ka shaqeyno goobo waxbarasho aan ka shaqeyno, caqabadaha jira dhammaan aan ognahay hadday yihiin dugsiga hoose dhexe ilaa dugsiga sare. marka waxaan taa baraarujinaya insha Allah waalidiinta Soomaaliyeed ee wadamada reer galbeedka jira in barnaamijyadaas ay ku baraarugaan, ka qayb galaan, kamoonyaashii degmooyinka ay degan yihiin ay la xaajoodaan, la fadhiistaan si loo weyneeyo u dabaaldega maalinta luuqadda hooyo, loogana sheekeeyo ahmiyadda ay leedahay, si waalidiinta Soomaaliyeed iyo waalidiinta kaleba loogu dhiirigeliyo ahmiyadda ay leedahay luuqadda hooyo inay ilmahooda bartaan. marka barnaamijkaasna live aan u cover gareyn doona insha Allah. I think waa maalinta khamiista 21ka 10 subaxnimo ama 4 saac subaxnimo, 4 saac subaxnimo ama 10 subaxnimo. marka insha Allah de taasna waan warbixin dambe in ka daba geenayahay insha Allah. wixii hadda ka dambeeya insha Allah habeen walba ama inta fasaxida lagu jiro, hadda waxaan ku jirnaa waxa la winter break ala winter fair waxa la dhaho, intaan awoodi karno insha Allah inaan sameyno. maalmaha kale shaqooyinkii harjadka uu bilowdana de weekii mar inaan wixii aan la wadaagi karno aan waalidiinta Soomaaliyeed la wadaagno. aad ayay u mahadsantiin. soo dhawaad insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.